isula meel dhignay ujeedka barnaamijkeenu waa helida Somaliland la wada leeyahay toddobaadkana waxaynu dul tagaynaa wasaaradii hore aad ugu taqaaneen wasaaradda duulista iyo hawada oo 2 sanadood ka hor madaxweyne Muuse Biixi uu bedelay hay'adda duulista hawada iyo madaarada dalka halkani waa sumad iyo barkalo madow oo markhaati u ah dheeliga iyo wax wada lahaanshiya liida Somaliland aan ku bilaabay Somaliland 30 sanadood kadib waxa gabi ahaanba ka shaqeeya hal madaar oo kaliya oo kan caasimadda Hargeysa hay'adda duulista ee aad maqashaana waxay ka bilaabantaa madaarka Hargeysa waxaanay ku dhamaataa isla madaarka caasimadda shaqaalaha hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland waxay badankoodu ka soo jeedaan deegaanada bariga iyo koonfurta Hargeysa hase yeeshee arrinta ahmiyadda mudan ayaa marka laga yimaado shaqaalaha waardiyayaal iyo nadiifooyinku ay qayb ka noqonayaan waxa xilalka ugu badan mas'uuliyiinta ugu sarreysa iyo meelaha ugu muhiimsan balageeyay oo ka arrimiya waxna ku dulmaartaag iyo haybta madaxweynaha aynu hal isu dul taagnay ila tirada madaxda iyo mas'uuliyiinta hay'adan iyo xilalka ay hayaan maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada oo bedelay booskii wasiirkii wasaaradda duulista iyo hawada agaasimaha waaxda qorsheynta ahna gudoomiyaha gudida dabagalka musuqmaasuqa agaasimaha waaxda gaadiidka maamula ku xigeenka madaarka ahna agaasimaha waaxda amniga ahna maamulaha mashruuca baarkinka madaarka agaasimaha maamulka lacagta mashruuca amniga madaarka taliyaha sirdoonka madaarada madaxa hawlgelinta mashruuca amniga ee madaarka iyo agaasimaha xiriirka dadweynaha hay'adda saddex mashruuc oo waaweyn ayaa ka dhex socda madaarka Hargeysa kuwaasi oo kala ah mashruuca amniga mashruuca baarkinka iyo mashruuca qandaraasyada madaarada intaasi ku darso waxa iyaguna ku jiraan tirada xilalka uu madaxweynuhu manfac iyo waqaqayn uu siiyay oo is-ardaa iyo xigaalkiisa haddaba xilal darajo iyo mas'uuliyad meeshaasi ku hadhay ma jirtee aan hoos ugu dago halka ay u dhimatay kani waa mashruuca ugu dhaqaalaha badan dhaqaalaha mashruucan ayaa dhaqaalihiisa laga helaa qof kasta oo rakaab oo ka baxaya madaarka Cigaal International Airport waxaana dul saaran oo laga qaadaa qof kasta lacag $26 sanadkiina waxa ka soo xarooday malaayiin dollar taasi oo gabi ahaanba aan khasnada dawladda ku dhicin kolay $1 ku tahayna lacagtan sidee loo qaadaa ayay isweydiintu tahay marka degtay madaarka Hargeysa kolka qofku halkaasi ka dago waxa laga qaadaa lacag dhan $60 $60kaasi $20 oo kamid ah ayaa si toos ah ugu dhacda khasnada qoyska waxaana khasnadaasi gacanta ku haya agaasimaha maamulka iyo lacagta iyo mashruuca amniga oo ah kolka laga yimaado raaska iyo haybta gudartaaga hoose madaxweyne Biixi waxa xusid mudan in lacagtan aan wax saxiix ah ku lahayn maadaama aanu la haybahayn madaxweynaha agaasimaha guud ee hay'adda misana ku magacaaban digreeta madaxweyne waxayse lacagtani saxiixiisa ku baxdaa maamula ku xigeenka madaarka ahna agaasimaha waaxda amniga iyo maamulaha mashruuca baarkinka baabuurta Axmed Carab oo isna ardaaga madaxweynaha balaanegno xisaabta lacagta gaadha khasnadaasi aanan ku bilowna tira koobka rakaabka ka soo dega madaarka waxa madaarka Cigaal ka hawlgala 5 diyaaradood oo madaarka Hargeysa si maalinle ah u soo fadhiista kuwaasi oo kala ah Ethiopia Airlines Fly Dubai Air Arabia Djibouti Airlines iyo African Airways guud ahaan sanadkii duulimaadyada waxa loo qaybiyaa oo hay'adda duulistu xisaabisaa 3 waqti oo ay ugu yeedho high season kuwa waqtiga xagaaga low season kuwa bilaha sanadkii hore duulimaadyaduna ay kooban yihiin xilliyada xajka iyo cimrada haddaba eegno duulimaadyada ay diyaaradaha si qaadaan sanadkii diyaaradda Ethiopia Airlines oo diyaaradda duulimaadyada ugu badan ka sameysay Hargeysa waxay xilliga low season-ka ama 5 bilood ee sanadka ugu horeeyay rakaabku yar yihiin ay sameeysaa 2 duulimaad oo ah gelinka hore iyo kan dambe waxaanay maalintii qaadaa 150 qof oo rakaab ah taasi oo micnaheedu yahay in 5 bilood ee sanadka ugu horeeyay ay qaado rakaab tiradiisu ay dhan tahay 22,500 oo qof diyaaradda Fly Dubai oo iyana Hargeysa ka sameysa 5 duulimaad intaanay libdhadu soo bixin toddobaadkiiba waxa ay qaadaa 90 qof duulimaad taasi oo micnaheedu yahay in ay qaado 450 qof toddobaadkii halka ay bishiina qaado 1800 oo qof guud ahaan xilliga low season-ka ama 5 bilood ee hore sanadkii waxay qaadaa 9,000 oo qof diyaaradda saddexaad oo Air Arabia waxay sameeysaa xilliga low season-ka ama bilaha hore 3 duulimaad toddobaadkii halkii duulimaadna waxay qaadaa 130 qof halka ay 5 bilood ee low season-ka micnaheedu noqonayo in ay qaado 7,200 oo rakaaba diyaaradda Air Djibouti oo iyana Hargeysa timaada maalin kasta waxay sameeysaa hal duulimaad waxaanay qaadaa 110 qof taasi oo micnaheedu noqonaya in iyana xilliga low season-ka ama 5 bilood ee sanadka ugu horeeyay Hargeysa ka qaada tiradooda ay dhan tahay 16,500 oo rakaaba waxa dheer diyaaradda Daalo oo wiigii 2 jeer tagta dalka Sacuudiga halkeedii safarna qaada 50 qof guud ahaan xilliga low season-ka ama 5 bilood hore waxay xambaartaa rakaab dhan 2,000 oo qof
xilliga ay hay'addu ugu yeedho xilliga high seasonka oo ah xilliga xagaaga iyo xajka waa waqtiyada diyaaradu ay sameeyaan duulimaadyada ugu badan lagana faa'iido lacagaha ugu badan waana 7 bilood ee ugu dambeeya sanadka bal markana aan eegno waqtiga ay ugu yeedhaan high seasonka iyo duulimaadyada ay sameeyaan diyaaradahaasi aan kor ku soo xusnay diyaaradda Ethiopia Airlines waxay samaysaa maalintiiba 2 duulimaad waxaanay qaadaa rakaab dhan 300 oo qof halkeedii duulimaad taasi oo ka dhigan in 7 bilood ee xagaaga ay qaado 63,000 oo rakaab ah diyaaradda Air Arabia ayaa iyana samaysa xilliga xagaaga maalin kastaba hal duulimaad oo ay ku qaado 140 rakaab ah waxaanay 7 bilood ee xagaaga ay sidaasi ku qaadaa dad dhan 29,400 oo qof diyaaradda dalka Djibouti ayaa iyana toddobaadkii samaysa 10 duulimaad waxaanay waqtiga xagaaga ama xilliyada high seasonka ay ku xisaabtantaa 7 bilood inay qaado dad gaaraya 28,000 diyaaradda African Airways oo laga leeyahay dalka Kenya ayaa timaada Hargeysa waqtiga xagaaga waxaanay samaysaa 2 duulimaad toddobaadkii iyadoo qaada 160 qof taasi oo ka dhigan in waqtiga high seasonka ay qaado 4,200 oo rakaab ah intaasi waxa dheer xilliyada xajka oo ay dadka xujaysta ah guraan diyaaradaha Daala iyo Juba waxaanay qaadaan sanad kasta oo ay Hargeysa ka xajaa 2,800 oo qof guud ahaan marka la isu geeyo tirada rakaabka ay diyaaradahaasi qaadaan saddexda xilli ee sanadku waxay ka dhigan tahay inay noqonayso tiradu guud ahaan 184,600 oo qof sanadkii tani waa xogta shantaasi diyaaradood ee duulimaadka joogtada ah ka sameeya airportka Hargeysa balse ma aha taasi oo kaliya inay Hargeysa ka dhoofaan ama ay ka soo degaan yeeshay rakaabka ay shantaasi diyaaradood qaadaan oo dhan sidaan horeba u soo sheegnay 8,600 oo qof oo rakaab ah ayaa dhammaanba dadkaasi waxaa dul saaran lacagta laga qaado dadku marka ay madaarka isticmaalayaan oo $26 ee iyana hore u soo xusnay haddaba 184,600 oo qof marka laga qaado qofkiiba $26 waxay noqonaysaa lacag dhan $4,799,600 Mareykanka ah waa lacagta kaliya ee uu soo xareeyo madaarku sanadkii waqtiga xukuumadda Siilaanyo calaa qof waxaa sharci ahayd in laga qaado $10 oo ay baarlamaanka Soomaaliland ansixiyeen balse hadda waxaa laga qaadaa $26 oo ka dhigan in $10 ee baarlamaanku ay ansixiyeen lagu kordhiyay $16 iyadoo aan la horgeyn golaha wakiilada sidii horeba loo horgeeyay $10 ee maanta maraya $26 hase yeeshee waqtigii xukuumadan cusub ee ay timi waxa madaarka la keenay maamulka ku-xigeenka cusub oo mashruucan isagu sida tooska u maamula mariyana meeshii loo keenay inay mariyaan isaga maareeyaha guud ee duulistu mashruuca labaad oo isna sida ka hore oo kale aan ugu yeeri karno ka hodanadeer waa mashruuca baarkinka baabuurta mashruucan waxa gacanta ku hayn jirtay shirkad gaar loo leeyahay private company waase laga soo wareejiyay shirkadii gaarka loo lahaa bishii September waa bishii 9aad ee sanadii 2018 waxaana si hoose loogu gacan galiyay shirkadu qoysku leeyahay taasi oo madax looga dhigay maamulka ku-xigeenka madaarka oo isna caa'ilad madaxweynenimo iyo lix jeclo qoys darteed aan halkan cidina kaga daba dhufan dhammaan mashaariicda iyo dhaqaalaha ka soo xaroodaba waa kuwa laga dheereeyay inay maraan nidaamka miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland isla markaana aanay wax saxiix ku lahayn agaasimaha guud ee hay'adda iyo maamulaha madaarka Toona waxa iga xasuusinaya in saddexda qof ee mashaariicda lacagtan badan ka soo xarootaba tooska u maamulayihiin ardaaga u muuqda in dalkii dhammaayay dhaxalaw uga tagay kuwaasi oo kala ah maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada maamulka ku-xigeenka madaarka iyo agaasimaha waaxda amniga ahna maamulaha mashruuca baarkinka dhinaca mashaariicda dhismayaasha waxa socda dhowr mashruuc kuwaasi oo dhammaantoodba qoyska kaliya muddooyinkii u dambeeyayna mashaariicda dhismahooda la bixiyay waxa kamida mashruuca dib u dhiska qaybta nasashada madaarka waxaana qandaraaskaasi si toos ah loo siiyay haweeney lagu magacaabo Deeqa oo ay walaalayeen xaaska madaxweyne Biixi qandaraaskan oo ku kacay lacag dhan $400,000 mashruuca labaadna waa mashruuca dhismaha baarkinka VIP-da oo lagu bixiyay $200,000 waxa isna la siiyay wiilay marwada kale madaxweynaha ay xigaal yihiin tan ayaa waxay u muuqataa maadaama marwooyinka mid kamida walaashad mashruuca hore ku tagtay in marwada kalena wiilka ay xigaalka yihiin ee mashruuca labaad qaatay uu madaxweynuhu masayrtiru siiyay xaaskiisa kale waxa soddon jirsaday gooniisitaaga Soomaaliland sidaas oo ay tahayna waxay maanta Soomaaliland leedahay ama shaqeeya hal madaar oo kaliya waana kan caasimadda ee Hargeysa barbarakeedii waa maqan yahay burco wali waa qabiyo boorame hadal male laasqaanud ha sheegin qeerigaabo way go'doonsantay xaalku waa Hargeysa oo kaliya dadku waa cadiban yihiin isu socodkuna waa cireeri xilli kasta oo intaan soo sheegnayba xaalku waa la isma dhaamo xilliyada roobabku haba ugu darnaadaane waxay qabaan shacabku dhibaato xoogan daadadku kolka ay rogmanayaan xaalku waa sidan togagu wala way badan yihiin waxaase ugu sii daran waaheen yaa u barkhadle ilaa banki cadaa ee qeerigaabo waa lama maraan
waxa dhibka ugu badani uu gaar u yahay shacabka gobolka go'doonka ka dhan kasta waa gobolka Sanaag gobolkan oo ay hakad galiyaan joobada dhiig iyo dhab la'aanta daansata iyo waxay dheefta u lahaayeen oo dhinac ka raran